waxaa hadda la xaqiijiyay geerida Xasan Nasrallah kadib markii jimcihii shalay toole duqeyme ay ka fulisay Israa'iil gudaha Lubnaan ee caasimadda Beirut ayuu ku dhintay Xasan Nasrallah hadda ayaana la xaqiijiyay sidoo kale Israa'iil waxay ku dishay Falastiin 40,000 oo Falastiiniyiin ah waxaana dad badan ku leeysay wadankaasi Lubnaan dhawaan weekend ku jirno sidoo kale waxa caalamka oo dhan maanta hadal haya dhimashada Xasan Nasrallah Israa'iil ayaan cidna waxba isaga tirinin waxa sidoo kale warbaahinta Middle East ay sheegaysaa Maxamed bin Salmaan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ku yiri arinta Falastiin maaha arin aan ugu dan ka leenahay waa sida uu yiri warbaahinta Middle East ay qorayso sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa shaqaalaha halka ka joogay safaaradda Mareykanka joogay amar ku siisay inay si degdeg ah uga baxaan Lubnaan maaha markii uu horeysay ee Israa'iil disho madaxda sare ee Hezbollah 1929 waxay dishay madaxii u sareeyay Hezbollah Abbas Musawi iyagoo gaarigiisa ku qarxiyay Abbas Musawi inta kadib waxa xilka la wareegay Xasan Nasrallah oo shalay jimcihii isaguna dhintay markii uu xilka la wareegay Xasan Nasrallah 1929 ayaa mid kamid ah saraakiisha sare ee ciidanka Israa'iil ayaa waraysi isagoo bixinaya wuxuu sheegay inuu Xasan Nasrallah kaga daran yahay Abbas Musawi sidoo kale inuu Xasan Nasrallah si fiican u yaqaano dhaqanka Yuhuudda iyo shacabka Yuhuudda si fiican u fahansan yahay haddaba Xasan Nasrallah markii xilka loo dhaweeyay wuxuu la soo galay dardar isagoo weerarkiisa u horeeyay ka fuliyay safaaradda Israa'iil ku leedahay Argentina 1929 Maaris waxaana Israa'iil ay ku weerareen gantaalada la yiraahdo Kratos haddaba Hezbollah ayaa laga warsugayay sidoo uga falceliyaan dhimashada hogaamiyahooda